بسم الله الرحمن الرحيم كسو dhawaada barnaamijkeena ka faa'iido qodob waxaan sii wadnaa tutorialkeena quick book ahaa ee accountiga inagoo sii wadnay company-geena ahaa Liban company oo aan isticmaalayna sida data loo geliyo sida loo receive gareeyo wixii oo dhan aan ku baranaynay maanta waxaan ku baran doonaa aan eegnaa purchase order casharkii ugu dambeeyay sameeyno PO oo purchase order PO oo la soo gaabay purchase order oo ama dalabka alaabtii aan dalabnay marka ay ku timaado laba hab aad sameynaysaa labada hab waxa la yiraahdaa receiving inventory with bill iyo inventory alaabta waad helaysaa iyadoo oo la socdo biilkiina oo lacagtina ay biilkiina ugu jirto waxaad helaysaa kale receiving inventory without bill alaabta baad helaysaa laakiin wax biil lacag oo lacagtii qiimihii alaabta lagu soo diray ma jirto dib baa lagaga soo diraya marka maanta waxaan baran doonaa qaybta ugu sareysa receiving inventory with bill inventory helayno inaga iyada la socoto biilka marka saa u kali gareysid wuxuu ku soo dhigayaa shaashadaas ayuu ku soo dhigi doonaa shaashada markuu soo dhigo waxa tagaysaa fundarka meeshaas adeeganaysa biilna waa in ku click gareysanaysaa garinka kugu tahay waan ogata biil receiving waa inaad tid ku tahay saas inta soo check garanaysaa kabacdi waxaad soo qaadanaysaa fundarka doonaysid inaad receive gareysid ala BOBC amba purchase orderkiisa alaabtiisi ayaad ku dhufanaysaa marka saa ugu dhufatid Saudi Arabia wax biil receive imika wuxuu ku sheegay Saudi Arabia wax biil order inooma leh marka kuma soo bandhigayo waka barja open purchase receive zero weeyaan kabacdi waan bedelaynaa Saudi Arabia mid kale aan dooranayna waxaan dooranaynaa Thailand aan dooranay saas uu kugu soo bandhigaya oo pop up kugu soo sameynaya mar alla marka aad uu leeyahay purchase order oo sii jira oo dalab hore uu sii jiray saas uu kugu soo dhigay laakiin Sacuudiga markaan galnay inuu soo dhigay babka marka waxa ku sheegaysa inaanu jirin wax laba kabacdi marka saa u kali gareysid wuxuu ku soo dhigayaa purchase orderkii jiray ay ku soo dhigaya waana 5 PO5 kabacdi waxaan halka tid baad siinaysaa tid markaas sidoo wana aqbalay soo sheekaynaysa inuu sax yahay PO-da numberkan iyo kan lagu keenay iyo ka aad dalbatay inuu isku mid yihiin badaysan numberka serial number ku qoran isaguna uu ku soo qoraysaa shirkadda wanaagla kabacdi okay baad siinaysaa marka okay toos bay kugu timid wata marka aad taa u aragtid waxaad iska check garaynaysaa oo aad marka ugu horeysaba checking out muhiim ah alaabta ma tirisay markay ku timaado ee aad ka dejisid bakhaarka ee aad tirisid alaabtii quantity-gaas uu ku keentay ayaad ka garanaysaa sokorta ma haysataa 500 kg 500 karton kiish boorashkana ma haysataa 400 karton inta ma haysataa marka inta haysatid waad sheegareynaysaa lacagtooduna inta ma tahay marka wixii ay ku wada saxsan tahay kabacdi totalkina intaas ay ku tahay intaas oo dhan baa wada sheegareynaysaa checking baa la yiraahdaa mar walba hadaad customer gaar oo dalbatay halkaas aad ku dhufanaysaa customer-ka ka iibinaysid magaciisa halkaas uu ku sii jiraa waad ka dooraysaa amba mid cusub aad ku daraysaa hadana halka ku jirina kabacdi marka saad tirahdid kan hadii uu sameeyo kan hadii uu ku lahayn kaasu hadii aanu lahayn inta 400 ka soo aad ka weydii 100 kaliya dad weydii dhid garan karaysa waa lamba bedeli karaysa 300 kaliya tan ka qabalnay waad kaliya kartaa 300 ma kan waa 100 been weynaa markaan tirinay alaabta inoo timideen ka tirinay 100 kaas hadhow baad message ka u diraysaa adoonaysaa 100 kaas markaa halkan waxaad ku qoraysaa wixii memory-ga 100 baa dhiman baad ku qoraysaa kartaa amba 100 baa boorashka qalba dhim boorashka refer number-kan halkaasna number baa lagu qoraa oo refer number-ka iyagu sameystaan shirkadu ay leedahay ayaad gelinaysaa numberkiisa halkaas uu kugu jiraya kabacdi address-kiisa iyo wixii kale iska bixi dhow bixin kartaa dad doontid waxaan wax dhibaato saade kugu amaha kabacdi markaas aad u buuxisid waa iska wada check garanaysaa saa ay wada check garaysid ilaa aad check garaysid mar walba ogow ilaa aad check garaysid message garanaysid casharka amba quick book ma save garaysid marka saa u save garaysid ayaad soo noqonaysaa marka saa u save garaysid waxa sameynaysaa saa u save garaysid waxay ku tiray calaamada waxa ku tusaysaa biil inaad biilki bixinaysid ayuu ku tusaysaa marka saa wada save garaysid saa u dhameysatid waxaad qaabanaysaa oo aad taabanaysaa save and close haddii aad sii wadidna save and new oo qaar kala soo aad save garaysaa marka inaan waan xidhaynaa save and close bana save and close marka uu timaado saasay noqonaysaa reserve bill in yar baan ka harsinay inta yarna waxa weeyaan sida intii noo hadhay imika 100kii noo hadhay ayaa mar dambe inoo mid saad u qaabilaysid ayaan ku sheegaya receive inventory marka saa ugu dhufatid waxaad ku dhufataa purchase orderkii aad doonaysay barka inaad ka qaatay markii hore waxay ahayd keenin barka ka tagnay 100 ka tagnay Thailand taas waa Thailand taas aan ku dhufanayna casharkii ugu dambeeyay Thailand kaas 5 ku ahaa kabacdina okay baad siinaysaa
markaad okaysiin sidoo kale boqolkii quantity ayaa dib laynoogu keenay marka quantity alaabtii way timid RSS ka qoranaysa description-ka alaabtii way timid ayaad ku qoraysaa ama memory-gaagii boqolkii dhinna waan helay alaabtii dib baad u heshay amba dib baad u tirisay amba alaab kale lasoo raaciyo way timid marka halkaa timaado saas u timaado refer numberkaagana waad gelinaysaa numberka uu kugu soo qoray dambe ee sixitaanka dambe marka saa noqotay kabacdina waxaad oranaysaa save and close baad oranaysaa marka saa aad u click garaysid mid kale aan eegi doonaa umada waxaan kusoo qaadan doonaa weli kiiban sii wadnaa receiving and inventory with biilkiis bayna sii qaadanaa hal mid oo tusaale oo dheeraad kale ayaan sii bixin doonaa kabacdi baan casharka kala bilaabi doonaa without inventory-ga haddii aan helno India suppliers kaasaan eegaynaa wax suppliers wax fundar kuma leh kabacdi waan ka noqonaynaa markaas kuma laha wax baashaasha order ah waxba ma qaabilay sida waxba iskuma dirisid wax order kama dalban oo order ku diyaar ma jiro iska dhaafaysa kabacdi waxaad doonaysaa lawiyacdada saga dooranaysaa kaasna ma leh waa iska dhaafaysaa lawiyacdo aano ma leh waxaas oo dhan imika ma haysano talyaanigaasna haddana eegno talyaanigaas bar inoogu harsan barkaasna receive karayna talyaaniga bar bay inoogu harsanaa mar hore receive karaynay receiving kabacdina okay ba noqonayna 200 baa inoogu harsanaa 200 waan helnay 200 baa soo sheeg garanaysaa ku saxsan kabacdi markaad gelisid refer numberka 6678 ka gelisid kabacdina 200 kalena ay ku yimaadeen oo ay soo yimaadeen kabacdina waxaad sameynaysaa save and close aad ku sameynaysaa marka save and close ku sameeysid waxaad arkaysaa account payable-kaaga inuu increase garoobay uu noqday 144,000 baad noqonaysaa la eeg qasnadeeni waxba kama bixin oo kaashay waxaan dhigay daabshiilkii labadiiba way inoogu jirtaa laakiin deyntina waan soo qaadano waliba ganacsan suppliers-kiina uu alaabtu inoo keenay laakiin wax lacag inaga muuqaadin alaabtu inoo keenay hadhow waan sida alaabta loo bixiyo aan ku baran doonaa oo qaybtan booyaan biilkii sideen u bixinayno markaas lacagteenu yaraanaysa inventory without bill baan imika casharka ku xiga ayaan gelin doonaa oo aynu diyaar gareyn doono insha Allah taala fadlan subscribe gare channelka ka faa'iido aqoon si aad ula socotid Quickbook tutorial dhammaystiran oo af Soomaali ku baxaya wixii aad su'aal qabtaan ama talo ah waxaad igu soo diri doontaan commentiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته